waayahay wiilatool waxaan noo socdaan guda jirnaa dagaalkii Suudaan wuxuu marayaa meel oo aan caadi ahayn oo marayaa maxaa yeelay Suudaan waa wadan qabiili ah marka waxaa la arkay qabiil kasta inuu aado meesha ka soo jeedo macnaha waa shirkadii Soomaaliya oo cad waa wadan iska hubeysan oo ma aragtaa nin walba hubkiisa iska wato qabiil kastan hub u haysta marka hubkoodana wuu u duugan yahay mise u qarsoon yahay marka waxaa laga cabsooyaa nin walba inuu la soo baxo hubkiisa sida mataqaan gobolada janjawiidka yani cid Allah janjawiidka iyo reer Darfur iyo kuwa kale mataqaana oo reer galbeedka marka waxaa la isdhooyaa brother xaalka meel xun gaaray arintu waxay noqonaysaa qabiili waayahay marka sidii oo maad mataqaana ala socoteen shalatool waxaa dhacday in ciidamada taabacsan ninka la ximito ay weeraraan saldhig ee dowladda Masar ay ku leedahay dalka Suudaan meel la hayo marwi meesha weerareen waxayna qafaasheen qabteen ciidamadii Masarka qabteen Masar meesha ka bixiso cabasho balse ninka la ximito hogaaminaya ciidamada mataqaana mucaaradka mise dacmo sariic inuu hadlo oo yiraahdo ciidamadan dalka Masar waxay ku jiraan fil xifd wa sun macna gacanteena ku jira amaana waaye waana walaalaheena ma lagu xad gudbaayo laakiin maxaa dhacday la soo saaray video arintiisa mas'alkiisa beeneenayso waxa la soo saaray video tusinaya adduunka ciidamada Masar si loo bahdilay ciidamada Masar oo la soo qabtay qafaaleysha la toole waxa loo dhaqmay si oo aan curfiga bini'aadamka aan ku jirin ciidamadaas waa lagu xad gudbay xataa masalan ciidamo dagaal ku jira masalan ciidamo waxay mataqaana wadanka ku joogo heshiiska ay ku joogan wuxuu heshiis oo 10 sano ka hor la heshiiyay laakiin 2 sano ka hor mataqaana ay bilaabatay in oo la dardargeliyo marka ciidamadaas oo meesha ka joogo cuzulka ahaa oo hubin aan haysan oo mataqaan dagaal aan ku jirin la soo qabtay suxuna loo laqmay waxa la gaarsiiyay xataa inay ku socdaan jilbahooda kadibna xataa waxa la gaarsiiyay inay ku socdaan calooshood mataqaan ay gurgurtaan xataa waxa la soo saaray la sheegayaa in askari kamid askartaasi oo dhintay ilaa hadda lama hayo xaqiiqda dhimashada askarigaas iyo inuu nool yahay marka madax sare ciidamada qaranka Suudaan ayaa hadlay ninka la magaciisa Fattaax Burhaan wuu hadlay wuxuu anaga waxaan ku dagaalamoona tabarteena marka wuxuu waxaan xaq u leenahay in la macaamiltano dawladii anaga heshiis naga dhaxeeyo macnaha wuxuu taagay anaga waxa u baahanahay gurmud degdeg ah isla markaas dalka Masar ayaa bilaabay in arintaas uu dardargeliyo wuxuuna bilaabay gurmud degdeg ah inuu u fidiyo dawladda Suudaan maxaa yeelay Masar iyo Suudaan waxa ka dhaxeeyo heshiisyaas oo ah in iskaashi karaan xagga difaaca iska caawi karaan marka Masar waxay bilaawday inuu u fidiyo gurmud degdeg ah dawladda Suudaan waayo Masar waa wadan haysto intaasoo kun oo madfac حتى waddamadii mataqaana hadda Yurubta sida Mareykanka iyo Ruushka waxay ka codsanayeen Masar inay ka caawiso dhanka oo madaafiicda waan ogtiin tarato warqadii mataqaana la kashifayay oo sirta ah in Masar ay 40,000 oo madfac ka gaday dalka Ruushka sirtii qarxinay darad soo baxday Masar waxay taagantahay anaga ciidamadeen meesha lagu bahdilay marka amaankooda sugeena marka meeshaasna wixii caawinta walaaltinimada aan ka caawi karno waa ka caawinayna Masarna waxay go'aansatay isla toole waxa la go'aamiyay in koonfurta Suudaan oo laga dhiso saldhig military oo ka weyn kan hadda ku yaal meesha la marwi mid ka weyn ee dhahday aan dhisanayna Masar marka waxay taagantahay Suudaan waa caawinayna hana la caawiyo Suudaan sidii rabto ha loo caawiyo fiidiyoga oo soo gali baraha bulshada oo ahaa ciidamada Masar oo la bahdilayo oo jilbahood ku gurgurnayo calooshooda mataqaana oo maxallahay ku soconayo ayaa waxa baraha bulshada ku faafisay dawladda Ethiopia ku faafisay weena ku faraxsan tahay in dhibka loo geysto Masarada macnaha ayda ma oga in halkaas ay ku ceebeysay ninka mataqaana isku garabka yihiin Xamidu ay ceebeysay waa Xamidu wuxuu difaacayay sharaftii mataqaana karaamada ciidamada ay leeyihiin macnaha wuxuu dhahay anaga waxaan dhoornaa xuquuqda ciidamada balse waa la ceebeeyay waana ceebeeyay asxaabta Ethiopianka ceebeeyay arimaha hadda la dhaho ciidamada militariga Suudaan waa inay ku kacaan ayaa ah inay burburiyaan mis inay mataqaana gacanta ku dhigaan dekadaha ku yaalo badda cas sida dekadaha oo kala magacyadooda bur Suudaan iyo magaceeda Allah degla waxa la yiraahdaa dekadahaas waa dekadaha ay hubka ugu soo degtaan mucaaradkan mise dadkan oo wato Xamid hadar oo afgambiga inoo sameeyo waa meesha hubka ugu soo degato marka waxa la yiri hadii meeshaas oo matqan gacan lagu dhigo dadkan waa la curiyaami karaa marka waxa loo socdaa in gacan lagu dhigo dekadahaasi asbaabaha loo leeyahay dekadaha gacanta lagu dhigo ayaa waxay tahay in ciidamada ninkan uu hogaaminayo Xamduug ninkan mucaaradka ah iyo dalka Ethiopia inay iska kaasho doonaan dhanka badda maxaa yeelay wuxuu u socdaan inay iska kaashadaan dhanka badda ugu dambeyntii inay mataqaana oo meeshaas weerar oo ugu imaado Masar dhanka badda oo laga weeraro oo Suudaan taas ayaa laga cabsanayo loona socdaa waana qorshaha Ethiopia ay qorshaysay 10 sano ka hor wax had cusubna maaha marka waxa looyaa Masar waxay ku jirtaa dhoosa biyo intaas ku soo gaarna la iska muusaa marka anaga cidaan ma aragtaa wixii soo socdaan waa fahansanahay badan hadii mataqaana ay san ku sii socoto loo sii daayo dhibaato badan aan uga ma hayso marka waa in anaga aan iska difaacnaa intaas mataqaana oo weer uusan imaan baddaas wana iska qaban dadka joogo taasi dhoosa Masar Suudaanna waxay Masar u tahay meel istiraatiiji ah
مصر كلية ما هي أدوكنا أوتا استراتيجي هذا وعرفته وحال سكويس ماشي أمريكان كإيراش كل إمارات كإسرائيل كل جود بيحصل لك رأسوي إن كهلان السودان مركب مصر نحق قارت الجوان إن لساتو سلك ملتري كان كوين كان هذا يقول هاد ما شاء الله يا مروي وحين الجوان سطي إن كان لساتو سلك ودو بحرين كإثيوبيا ملودو هذا عن كده سنة سلك سهدو تدي أنت يسوي حمات مسعوك عن عودو قينو مدك هلا مركب عندنا مصر ولا قبته القفاش وحلو السعودي إن الوجل وجرجرتن يعني دad كان معارض كان ودad كان قفاشة وعداين وسعودين بو إن إجلان جرجرتن عبادين مرة تنها نسي إنتان قاته هو كان تسعمل وسعودين مركب مصر وحيت المية قعنا ذي كل جينا أرنتان وكذا على السودان سعودي حتى بكحنا جسم حيا للسلة الديار السعودي وليه ديار مطقنا ويعني وشبل ديارها ماركتها عادي شبل كلها هي سلة الدقي ديار السعودي عربي بلادها أقول كلام مركب سود السعودي وحدوه يا أنيجا ويوحد قدبتين تن أقبل مايو تاسم حوام معنا هذا دياردا سعودي أول دقيقي أول ويري محاول معنا ذو حواي سعودي وأنا هيش كل منه أنا جمرات كسحب لنا ساسو حتى باقي سعودي لودر كورن مركا عيد مضان ومعارضك وحي قرب كهشة إسرائيل يوحي كهشة إماراتك يوحي كهشة إثيوبيا يوضا مكلا يو حتى تركي لكن كوان ودولة يعني عيد مضان قرن كان هو جامع فتح وحي هوب مثلا كلمة كهشة قربنا متقانا وقه مريكن وحي كهشة قرب سعودي عربية مصر يوضا مكلا مركا والكل أذقي هاي تاسع لو سعودة مركز حالك السودان ماشي صومريا تذكر وحي كليه أرنت السودان كدعضي وحب متقانا تهي هلعي مس متقانا برقدي أو بلا بيس دجالك يصد حد أدونك ولا يبين خفل بحو كل ما مركز أنا متقانا سيت هاي وارك دونا على أيام بيننا مع المهن السودان إن شاء الله مركز أنا حنقول ولا عليه السودان إني أنا صومالي إخوان قاتان اتصال قاتان أنا دهان صومالي أنا نوع تصالح مركز سوداني أنا نقول قاتا أنا نقول أركا أنا أركا سيد أنا عنق قبيل وحتراي ملها نبض وحدين دانت ماله والله مد وحدين علمي لو ما ذو خطر بلايعه marka Suudaan hey hadii qaxooti baan qorabtiin in wadamada dariska agashaan meeshaas oo shacabka lagu bahdilo Allah Suudaan maxaa balaay oo soo socotiin Soomaaliya ma kuwaan qaadata anaga qaxooti bad meel walba abu anaga ku dhimanay anaga taagna anaga falxumo adduunka anaga ku ahayn marka idinka falxumo ana qarabta mardhow noqda eebo noqda soo gal hadana u kala baxa Puntland Jubaland Soomaaliya matqaan qabiil iyo furta life matqaan isku caay daaroodi hawi sasamal matqaan kuween amal mart isku caay brother hal soo waasho ilaa qiyaamaha di aakhir u daa salaam alaykum Suudaan